xafladaadu ballaaran ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda SSC ee West Midland oo ka dhacday magaalada Coventry. xafladan oo ka soo qayb galeen dadweyne fara badan oo ka kala yimid dhammaan magaalooyinka waddankan UK. xafladan oo ahayd xaflad lagu soo dhaweynayay Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil iyo waliba hoggaanka SSC oo hadda safaro ku jooga magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. SSC oo ah xubin ka mid ah xubnaha Soomaaliya oo iminka la doonayo in dib looga aaso markay Soomaaliya 20 sano dawlad la'aan ku dhacday in ay ka qaadato firfircooni Soomaaliya si looga bixin la xaaladda ay ku jirto iminka oo loo samata bixiyo Soomaaliya iyo dalka Soomaaliyeedba taasoo ah muddo dheer oo 20 sano ka soo wareegtay markii Puntland iyo Somaliland oo la doonayay inay dalka Soomaaliya dabaqabateeyaan ay dabaqabayn kari waayeen dalka Soomaaliya ay keeneen iminka inay yidhaahdaan waa si go'aynaada calamo cusub hor la ay sameeyaan si dalka Soomaaliya loo kala gooyo ma dhacayso inta SSC jirta dalka Soomaaliya in kala gooyo وسببت هاي وحويه dad Soomaalinimada iyo walaalnimada ummadda Soomaaliyeed ku dhaartay weeye kana maarmi karin dadka Soomaaliyeed walaalahooda meel kasta ay joogaan Soomaaliya burburkeedii in taariikh badan oo negative ay ka dhasheen in Soomaaliya ay u taagantay hadeer in la gato dalkii iyo dadkii la gato ay taagan yihiin laakiin ururkan SSC waa urur Soomaaliyeed ee aan ahayn mid qabiil iyo jabhad u taagan ururka SSC si uu cawl sheegay waa Soomaali sinaan iyo cadaalad buu taagan yahay wuxuuna ku salaysan yahay ama ka soo jeeda daraawiishtii oo ahayd inta taariikhdu qorayso nimankii u soo dagaalamay Soomaaliyana sharaf u soo jiiday kana hortaagna in Soomaaliya la gaaleeyo lana dagaalamay quwadii ugu weyneed ee imbaradoriyadda Ingiriiska ahayd iyo kuwii waxaan rajaynayaa in la isu taago danaha ummadda Soomaaliyeed haddaan danta ummadda la isu taagin waxa kale ee lagu wareegaaleystay iyo waanu go'aynaa waa waxba ka jirin wax go'aya waanu diidnay haday go'ayaan cid go'aysa hagoodo la diid go'itaanka dadka ku sheekeynaya waanu go'aynaa idinka idinku xiran tahay miyada gashay in la go'o loo sheego hal loogu dhaarto Europe kala maarmooydo European Union baa la sameystay dad gabigoodaba dooni qaada kala waa kala go'ayna haweenka Soomaaliyeed gaar ahaan haweenka SSC taariikhda sidii aynu xusuusanahay waxa aynu soo maray halgamo fara badan oo aynu ka xusi karno kii daraawiishta oo aynu ka xusi karno kii SYL waxaan u malaynayaa halgan adduunka soo mara oo aanay haweenku barbar taagnayn ama aanay ahayn udubkooda koowaad ma hirgalo aan la hadlayaa daaya waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa oo aanan ilaaweyn meeshay taariikhda ka galeen dhalinyarada qarnigaan idhaahdaa ee suda aad baan ugu idinku mahadnaqayaa aad waxay buuxiyeen kaalintii SSC way buuxiyeen meel bay gaarsiiyeen waxaa la doonayaa inaad ka sii aad intaa iyo inka badan baa laydinka eegaya halkaad gaadheen waad ku mahadsantihiin waa idinku garab taagannahay waa idinku mahadnaqaynaa waxaan doonayaa inaad halkaa kala sii fogaataan waxaan kaloo mahadnaqayaa aad iyo aad محمد بوعمي
waxaan u malaynayaa ninkaan ogayn caawaan qofka aan SSC ahayn ee u sheegaya maxamed boocame wuxuu noqday halyayga sanadka SSC wuxuu mudan yahay in la guddoonsiiyo bilad waxaan u leeyahay fariin uu farayaa garaad jaamac garaad ismaaciil ducaale adiga iyo ragga hoggaanka iyo garaad jaamac garaad cali inaad biladda koowaad siisaan boocame waayo wuxuu gutay waajibaadkii ka saarnaa dadkiisa iyo dalkiisa ayuu ka soo baxay haddaanu dhallinyarada ururka sudannahay meel kastaan joognaba maanta inaysan ahayn wakhtigii odayaasha dhulka qasaya iyo kuwan aan wax garanayna dhulka qasaya toonna it's our time we going to lead it and ku wargelinaya aan u sheegayaa dhammaan inay kaceen kuna hanwen yihiin insha Allah inay dhulkoodii wax u qabtaan programmada aan soo wadno kale waxa kamid ah insha Allah bismillahil karim next year June inaanu ku tagno dhulkeenii hooyo ugu yaraan 50 to 100 students oo SSC oo wax baratay iyo kuwa maaragtay xirfado leh inaanu dhulkii tagno aanu dhulkii aan maaragtay dhalinta wax baranaysa aanu uga soo faa'iideyno mashruucyo fara badan aanu ka qabanno mashruucyada anagoo diyaarinayna hadda insha Allah taasna ku hanweyn haddaanu ahayn jaaliyada Coventry waxaanu ka mid ahayn dadkii ka qayb galay tukaraq number 1 waxaanu ka qayb qaadanay barnaamijkii ka socday buuro wadal ee garaadadu joogeen waxa soo dhan waxaan uga jeedaa haddii aanan isku duubnayn runtii noomay hirgaleen waxa weeyaan shacab badan baa dulman shacabka gabooyo waa dulman yahay isagoo way nagu dhex dulman yahay in loo hadlo oo shacabka gabooyo loo hadlo iyada laftirkeeda waajib meesha ku jira waa shacab muslima waa shacab aan wada dhalanay waa dad inaga mid waa dad Soomaaliyeed in maartay la dhibaateeyo oo dhexdana lagu dhibaateeyo oo nimanka wadaadada ah waliba ina ka hadal ciidamada qaatayna ka hadal waa khalad shacabka ogaadeen isaga uu ololeeyaa waxaan ugu olanayaa waa shacab dulman weeyaan waana shacab Soomaaliyeed weeyaan meeshaynu isugu nimaadno ama meel kasto aynu Soomaali isugu nimaadno in la shacabka la gumaysto weeyaan ma shacabka Itoobiya degan la yiraahdo waa shacabka la gumaysto ee guryahooda lagu dilo weeyaan shacabkaasna marka in la soo qaado iyadana waa waajib wuxuu banaan qaamo calan kayaga midab qureexiisa isagoo ku mudan maraan sidaan ugu mucurtooday muraaqabad darteed gabayadaan ugu murad yeeshay dhegiin badan maalay oo weydin maqashene barnaamijkii ballaadhnaa ee inagu oo Soomaali haddana ku saabsanaa deegaamada aynu ka soo jeedno oo ah sool iyo sanaag iyo cayn ama Soomaali sinaan iyo cadaalad ama SSC hawshani waxay ahayd hawd ballaadhan oo runtii markii dawladdii central government-ka ahayd ee Soomaaliyeed ay dhacday oo ay burburtay reer walibana waxa weeye uu deegaankiisii iyo dhulkiisii dib ugu noqday dadkan iyagu ka soo jeeda saddexda gobol anigoo aan faanayn runtii taariikh dheerna Soomaali ku lahaa waxay runtii noqdeen reerkii ugu horeeyay ee isku dayay in ay iyagu deegaankooda iyo dhulkooda ay maamul u sameeyaan kaga nabad galaan dhibaatada ummadda Soomaaliyeedna ku soo dhaweeyaan dhulka islaamkana ay ka mid noqoto dhulkii ugu qiimaha badnaa arrinkii markii boocama la taagay waa 1991 bay ahayd bishii shanaad bay ahayd waxa idinkugu yimid walaalayaal farxad inay idin la qaato walaalahayga SSC marka labaad waxaan leeyahay waxa guulaama geelo aroor la ganay waxa gaaf meera aarko gantaalka baqa waxa gaardiya SSC oo garteeda heshay kan dhiig lahayn iyo dhaandhaan ma garan karo nin hurdaa ma dhicin karo
geesiyadii dhulkaygan ku dhaadanayo maxaad dhowranaysaan dhalinyaro iyo waayeel dhammaan dadkayga maxaad dhowranaysaan soo kan tagay dhulkii aan ku dhaadan jirnay sool ma iska daynaa sanaag ma ka samirteen sabarkii cayn misaas baan u daynaa waxaan halka calaamad su'aal baan saaray aan leeyahay sool ma iska daynaa sanaag ma ka samirteen sabarkii cayn misaas baan u daynaa kuuri hadda waxay socotaba 4 sano waxa la dul fadhiyay laascaanood 3 sano waxa loogu jiraa gudaha oo Oktoobartii hadda ugu xidhmatay 3 sano 15keed xafladan waxay xaflad lagu soo dhaweynayay garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo waliba sanad guuradii ka soo wareegtay SSC Maxamuud Maxamed Xasan Maxamuud Boocame